Deganka Bitaale oo dhaca waqooyi bari Gobalka Mudug ayaa waxa tagay Gidomiyaha Gobalka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diire Isxal iyadoo tagitaanka Gidomiyaha uu yahay si uga qayb galo Calemasarka Gidomiyaha cusub ee Deganka Bitaale Cabdi Aadan Cabdille oo ay dhawaan doorteen dadka Deganka Bitaale ugu horreyn munaasabada Calemasarku ay ka dhacaysay ayaa waxa halkaas ka hadlay Gidomiyaha cusub ee Deganka Bitaale Cabdi Aadan Cabdille iyo ku-xigeenkiisa iyagoo sheegay in xilka loo igmaday ay ugu shaqeyn doonaan bulshada Deganka Bitaale waxaan rabaa inaan u cadeeyo inaan ahay Gidomiyaha degmada Bitaale Cabdi Aadan Cabdille waxaan rabaa inaan idin sheego sida xaqiiqada anigu doorashadayda meesha lagu doortay ma ahayn in maaragtay aan dana anigu aan leeyahay ku fulsado ma ahayn intaas aan idin cadeynaya waxaan rabaa hadduu Allah idino sida xaqiiqada oo xaqa oo Ilaahay nagu og yahay inaan degmada Bitaale bulshadeeda qaybadeeda kala duwan inaan ku hogaamiyo waxaan kaloo aan rabaa inaan ii sheego sida dantiino ay ku jidho danta deegaankana ay ku jidho danta diintuna ay ku jidho waxaan ahayn anigu ku nuxnuxsamayo dhanka kale isla goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka soo qayb galay Calemasarka Gidomiyaha cusub ee Deganka Bitaale waxaan leeyahay Gidomiyaha caawal Calemasarayo Cabdi Aadan Cabdille hambalyo waxaan dhammaan intayadan iskugu nimid ka soo qaybgalka doorasho Calemasarka Gidomiyaha degmada Bitaale Cabdi Aadan Cabdille ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray Gidomiyaha Gobalka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diire Isxal oo Gidomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa kula dardaarmay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nabadda Deganka Bitaale waxaan meelinayaa bulshada Deganka Bitaale ee isku taxalluujisay inay fursadan caawi ku Calemasartaan Gidomiyahooda cusub ayagana waa mahadcelinaya inta kadib maamulku waxa weeye waa wada shaqeyn ma aha in qof kaligiis wax wadi karo qof walba haduusan garbihiisa wadan ee uusan la shaqeyn asaguna uusan tixgelin shaqa ma soconayso waxaan rabaa Gidomiyuhu in Gudoomiye ku-xigeenka ku xiran yahay ururka dhalinyarada ku xiran yahay ururka haweenka ku xiran yahay culamaa diinka ku xiran yahay hadduusan garbaha ka tago kaligiis buu noqonayaa mana shaqeyn karo waxaan rabnaa maamulka cusub wada shaqeyn baa naga dhaxaysa Deganka Bitaale wixii baahi ah oo deegaanku soo gudbiyana inaan wax kala qabanno waajib bay nagu tahay asagana waxa laga rabaa waxaan maamulku gobolka ogeyn inaan meesha laga hirgelin nuucay rabtaa noqoto wada shaqeynta noocaas weeye Maxamed Muxiidiin Saxan Soxo Shabelle TV Galkacyo